وانقصر بصاحب رأي إمام مالك دفع تدك إيران حتى صلاة جمعة جمعياشي من جرين وكان أنا بوقن جرين أصلا نراعي جرين markii la weydiiyeyna waxa uu ku warceliyey qof kastaaba ma awoodo inuu sheego cudurdaarkiisa adiguna waa adiga waddada iimaankaas weyn haya ee naftaada ku kariyeystay cudurdaarada qaarkood saaxiib ma aqbalo cadowguna waa kugu guursanayaa alla qalbiyadu maxay ka deedmaan markay gacaltooyadooda ay kala fogaato waxay ku tusinaysaa in masaafada ugu dheer ifkuba ay tahay ta u dhaxaysa laba qof oo maalin hal qof isku ahaa alla uu heshi fiican ila saaxiib kitaabka quraanka diganaha madaarij saalikiin ابن القيم iyo tafsiirkii ibn kasiir ayaad la saaxiibtay qaadimka ka akhrinaysaa hadalkii rabbiga ayaa qofka ilaahay rumeeyay qalbigiisa ayuu hanuuniyaa alla samaa usubana ka xaqabelo ka dherg saaxiib ku kabkab aayadaha rabbiga dultoloolada aad qalbigaaga u geysatay waxa suuraha in inta aad aayad quraan akhrido ay laabtu ku geyso si aan qofna awoodin inuu hab ku siiyo oo aad ugu tiirsato si aanay bakooradin awoodin inay ku tukabiso oo ay ku samirtiiso qaabani oraahina awoodin inay ku samirtiiso oo ay niyada kugu dhisto qaabanu hadalna kareenin inuu niyada kugu kaabo quraankan waa laabgelin bakoorad sabirsiis iyo niyad bis marar badanna waxa uu baandhaysa ama balastar u noqdaa dhaawacyaana cidina arki kareenin waxaad ka akhrinaysaa buugaas madaarijka haddii uu qalbigu la babogleeyo oo warwar u saaqo arrinka keliya ee uu ku xasili karaa wax uska ilaahay uun alla ibnu qayyim cajiibsanaaye qalday sida uu soo gaarsiinayo dambaalada dhanka rabbiga ka socda si uu qalbigaaga u hagaajiyo una kugu gacan geliyo khariiradaadii aad rabbiga ku gaari lahayd haddii aad rabbiga gaadho waxba kaa dhibi maayo waayaha wixii ku seegay waxaad ka akhriyaysaa tafsiirka ibn kasiir hadalka uu cabdullaahi ibn mascuud ka soo warinayay nabiga sallallahu calayhi wasallam yaa ilaahay dheeraadkiisa ama fadligiisa wax ku weydiista uu jecel yahay weynuhu in wax la weydiisto cibaadadana waxa ugu dooro sugitaanka samada bixinta ama farajka markaasaad arrimahaaga oo dhan ilaahay u tala saaranaysaa aadna sida ay tahay u caabudaysaa adigoo ka naawilaya samada bixin dhow inuu kugu marnaysto waxaad soo xasuusanaysaa adigoo akhriyaya tafsiirka ibnu kasiir sida ay barbaartii aqalka arqam ku shiri jirtay ugu gureen meedadkii madaxweyntii quraysheed koofka badal ku yaalla markaasaad dhaadaysaa in ilaahay agtiisa wax madhacaanahay aanay jirin waayuhuna ay wareegayaan iyadoo ilaahay uu qalbiga muuminka kadeedin kuu dabciyo oo uu tabiibayo adigana waan ku arkaa saaxiib inaad kadeedan tahay ee samir marka ay noqoto dhanka dadka waxa kaaga filan odhahdii Umar bin Khattab ee ahayd ka dheero waxa ku dhibaya gacanka caafin gifka aad ku dhacday adigoo in badan gafeefkiisa u dhaafayay ogow inuu gafkaasi kula sigayay si cudur daar uga dhigto oo kaaga buruusada ama kaaga tago qofka aad u taagtay gacanta ee inuu qabto diiday adigoo weligaaba gacan hagar la'aaneed u fidinayay waxa uu damacsanaa inaad mar u sii dayso si uu kaaga hayaamo ku dheeraada canaanashadu waxa uu maaganaa inuu iska xayuubiyo dembiga uu galay ee uu dareemayo adigana uu ku xambaariyo si uu isku qanciyo inuu yahay qof dulman oo laga gardaran yahay oo uu tago waxba albaabadooda ha sii garaacin hana fanan oo ha uga dhicin derbiga qof aan doonaynin inaad soo gaadho waxa bogaadinka ugu filan inaad isku dayday iminka kadib tegitaan ku gud ilowga ku gud iridda laga xidhay irid la xidho ku gud udhe haddii aad hadda kadib aragtaan baan nagaadi ayada leh haddii aan mar dambe gacanta idin soo fidinana lagaba gooya nabaadina saaxiib